حساسية هرسيت وموضوعي أدك هينات فلانقيسة أما أدك شيكيسو وشيكو أي مهمة قارة أقول لي هاي الروح والبو سبورتك الصومالية حسينية وعوانو أي لاك حتن دمان شبكدها وحيابها سبورتك كصاب صنفافية الصومالية كصوبحة ويلكن موحل الدنيا إنكو بدل جمدوبي سيدي ماسو توصل كبدل سير بلو مدوبي محوية يحلك كدحية إستجا يكود وميها كوح ظهر سيت بسمع عنك عصبية كوح ذا نيا كودجن أو جدا إنه عياره محيطها صوبتها حساسي لو جديدي إن حتى وكسو قيب عطته بركة كوح ظهر سيت إسكدا إنه عياره من دعيك بتاين حساسي وصلنا كان كتجا كوح ظهر سيت ونبيره كوح كله وعوان هذا إنه شجعنا لها صاحب لبو إلا يسدح دقيقة سؤال إنه نكوف لنقينا مقالكن مقعي جوا عبد ولي محمد حرفدنا واحد قد بنتها وحن قصور لحجرين مدة كل بعض طبعا صناعة يقولوا سودو مقالكن مركز تايرو حميله رجله مستقبل يوايا أرجع مفيا عنا ولا وحو قبل لها مركز قاركود وحي ماذا عقبض بدن كوا وكاهو استاجي شقدي عقبنيسي Soomaaliya dadka inta tirada badani waxay yihiin kuwa aan ku mashquulin qofka wanaagdiisa kana fiiriyo baalka madow ama waxyaabaha xumaanta ee uu sameynayo haddana dhalinyaro tiro badan oo ku nool gudaha waddankeeni hooyo ee Soomaaliya ayaa u istaagay ka rumaynta rajadooda soo bandhigida tayadooda iyo sidoo kale inay ku xamaashaan xirfadda uu eeboweyna siiyay dhalinyaradaasi waxay isku jiraan kuwa muruqooda ku xamaasha kuwa xirfadahooda qaaska ah ku shaqaysta isboortigu waxa uu ka mid yahay xirfadaha sida qaaska loogu xamaasho ama dhalinyaradan ay isticmaalaan xirfadaha si ay dhalinyarada soo bandhigayaan waxa ka mid ah kubadda cagta milyoonaad dhalinyaro ah ayaa jecel inay matalaan xulka Ocean Stars ka soo muuqdaan kooxaha heerka koowaad labaad iyo saddexaad ee dalka Soomaaliya haddana caqabadaha haysta dartood milyoonaadkaasi uma wada suurto gasho inay shaqadaasi adag qabtaan qaarkood yar oo kaliya ayay u suurto gashaa kuwii yaraa ayaa haddana la kulma mararka qaar tacdiye ka dhana kooxaha hogaamiyaashooda sida milkiilayaasha macallimiinta iyo shakhsiyaadka tala wadaaga la kooxdaasi xasaasi waxa uu ka mid yahay boqolka dhalinyaro ee 20 sano ee ugu dambeeyay ama 10 sano ee ugu dambeeyay magacooda uu ku baahay bahda isboortiga sanadkii tagay waxa uu ku guuleystay xiddigii ugu fiicnaa ee dalka Soomaaliya kubadiisa cagta haddase kama tirsana xulka Soomaaliya kama tirsana wax kooxa موسن عيارين لمان هريالك الصومالية قيبتي سيوغو دنبي بل محاوغو عن صاحبك النضاونا يو ويسكعد هاي موضوعا صحافة الصومالية متش على إنيك هاللان وحيابا حقيق ده إيكتاقن دالكا إي سبورتي جيسا هدو أهان لها شيكا كوحيت مد حيريكا كوصابسن أما دعدوين مروغا له أو كدحدع يقرومدو قدوهو ده لكن وحي تليان وحيابا سيدا عادي قال لو أركيو حساسي سند كيسي ugu dambeeyay ayuu ku qaadanayay sanadkan kooxda horseet macalinka cusub ee kooxdan una suurto galiyay inay ku guuleystaan horyaalka dalka Soomaaliya markoodii ugu horeysay muddo 40 sano kadib waxa ay asaga xasaasi dhaxmaray xiriir wanaagsan sida aynu warar aynu helayna ay sheegayaan laakiin xiriirkaasi ma uusan suurto galin in xasaasi lagu qanciyo inuu sii joogo kooxda horseet taa waxay sababtay in uu soo fargashto kiiskan maamulaha guud ama gudoomiyaha guud ee kooxdan ninka lagu naanayso generaalka kana tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya generaalku isagoo adeegsanaya awoodiisa ciidan midiisa maamul ee kooxda ayuu amar ku baxshay in xasaasi laga saaro dhammaan liiska ciyaartoyda kooxda horseet waxa uu u diiday inuu ka soo muuqdo tababarka kooxda iska badaa inuu ciyaaree sidoo kale isagoo adeegsanaya magaca kooxda horseet uu xilka kaga hayo ayuu ku barishar gareeyay xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya in xasaasi aan lagu darin xulka Soomaaliya أنا هانتي ذا مركز كهاد لانه وأنا كهامد إيرا إنها كمد نقضة لكن سوق أوي لك كوح ذا ترتي ذا سنة كانوا سيجينا في الفراعنة. صوماها المصيبة وين بدنا صاحب داودي صوماها وحلا جمر وجوده إن عياريان حرف الله يسفهم ضرائب الصوت لحق شدرتت عاد وجود يدو حتى إنه متلحول كيسي قرنكا قلت واجبات كيسي واجب كهاي سقصرنا adigoo ku bareesharaya inuu kula sii joogo horseet waa muhiim xasaasi inay haystaan maxaa yeelay sanadan waxa ka howleelaya oo gabi ahaanba dalka iskaga baxaya Qubaye Yara Cabdallah oo isaga dibadda uga socda wadanka sida daraadeed si uu helaan bedelka Qubaye waxay ku bareeshar gareynayaan xasaasi oo maalmo dalxiis hadda ku qaadanaya Puntland in uu kooxdooda sii joogo
waan filayaa daawada inaad xog kooban ka heshay waxyaabaha ku saabsan xasaasi iyo horseed sheekooyinkan kuwa la mid ah ayaynu baahin doonaa sidoo kale maalmaha soo aadan kuwa oo kaa qabsoon si aad noola socoto saaxiib noo follow garee page-keenan like saar muuqaalkan sii share garee sidoo kale xaq ayaad u leedahay inaad muuqato YouTube-keena haddii muuqaaladeena ay ku xiiso geliyaan waad mahadsan tahay